Haddaan ka hadalno dadka madow ee dunida daafaheeda ku nool, dhibta ay kala kulmaan dadka kale ee caddaanka iyo in ay ula dhaqmaan dadka Afrikaanka ah, mabda' ah waa bahal ee addoonso. Muuqaalka intuu socdo ayaan arkaynaa. Marka hore aan mikrofoonka siino barnaamijka. Marka raadraac lagu sameeyo taariikhda waqooyiga iyo koonfurta Ameerika, mid ka mid ah qeybaha ugu xanuunka badan taariikhdaasi waa xilligii dadyoowga Afrikaanka lagu gumaysan jiray dhulkaasi. Boqolaal sano ka hor, dadyow fara badan ayaa si qasab ah looga soo kaxeeyay Afrika si ay uga shaqeeyaan dhul beereedyo ku yaalay wadamo fara badan, kuwaasi oo waqooyiga iyo koonfurta Ameerika ka tirsan. Markii ugu horeysay reer Yurub ay yimaadaan qaaradda Ameerika, qaar ka mid ah ganacsatadii oo Yurubiyaanka waxay xaqiiqsadeen in ay lacag ka samayn karaan beeraha dalagyada si ay uga ganacsadaan Yurub gudaheeda. Sidaa la ajligeeda, si ay u sameeyaan ganacsi guuleysta, waxay ogaadeen in loo baahan yahay shaqaalo ka howlgala beeraha ay beertaan, weliba ku shaqeeya mushaar aan aad u badnayn. Inkastoo ay jireen dadyow yar oo Yurubiyaan ah oo yimid qaaradda Ameerika si oo ku shaqeynayay mushaar aad u yar, taa beddelkeeda milkiilayaashii beeraha waxay raadiyeen addoomo u shaqeeya. Waxaa xusid mudan in ay jireen dadyow aan saa u badnayn oo Hindiyaan ahaa. Milkiilayaashii beeraha waxay ogaadeen in laga maarmaan ay tahay helidda dadka madow ee Afrikaanka ah. Habka ee ganacsatadaasi ay ku heli jireen waxay ahayd ayagoo ka iibsan jiray boqoradii ka talin jiray galbeedka Afrika. Tanina waxay horseeday in ay dagaal baahsan uu ka dhex dilaaco boqoradaasi, sababtoo ah boqor waliba wuxuu isku dayi jiray in uu gacanta ku dhigo dadyowga ku nool boqortooyada la dariska ah si uu uga iibsado ganacsatadii ka imaan jiray qaaradda Ameerika ee raadin jiray addoommada. Ka sokow boqoradaasi u hanqaltaagi jiray iibsiga dadyowga Afrikaanka ah, waxaa jiray boqoro yar oo faraku-tiris ah oo isu dayi jiray in ay ka hortagaan ganacsiga dadyowga Afrikaanka ah. Muddadii u dhaxaysay sanadadii 1500 ilaa 1800, in ku dhow 12 milyan oo dadyow Afrikaan ah ayaa laga soo kaxeeyay galbeedka Afrika, ayagoo si qasab ah lagu keenay qaaradda Ameerika. Waxaa jiray dad geeriyooday intaan laga wadin Afrika maadaama ay la kulmeen tacdiyo foolxun, halka qaarna ay ku dhex geeriyoodeen maraakiibtii loogu talagalay in lagu geeyo qaaradda Ameerika. Sababtuna waxay ahayd xaalado caafimaad daro awgeeda oo ka jirtay maraakiibtii oo ay saarnaayeen, iyo ciriiri badan maadaama ay dadka tiradoodu ay ahayd mid aad u badan. Waxaa midaas sii dheer oo ka qayb qaadan jirtay dhimashada addoommada, cunto iyo biyo yaraan awgeed. Markii dadyowga Afrikaanka ahaa la keenay qaaradda Ameerika, waxaa lagu amray in ay si qasab ah kaga shaqeeyaan beeraha. Beerahaas waxaa lagu beeri jiray suufka iyo sokorta. Natiijo ka dhalatay awgeed shaqada oo aad u adkeed, shaqaale badan ayaa geeriyooday ayagoo ku guda jira howlahooda, balse milkiilayaasha waxay ku bedeli jireen shaqaalaha ka geeriyooda shaqaale kale oo laga keeni jiray qaaradda Afrika. Meelaha qaar, addoommadii Afrikaanka ahaa waxay awood u yeesheen in ay banaanbaxyo kaga soo horjeestaan dadkii ay u shaqayn jireen. Addoommada qaar ayaa ka cararay shaqooyinkooda ayagoo u baxsaday dhulalka saxarada si ay ugu roowaan cadaadiska kaga imaan jiray ganacsatadii ay u shaqayn jireen. Dhowr sano kadib, dad badan oo Yurub iyo Ameerika ku nool ayaa ogaaday in addoonsigu uu yahay shay qalad. Sanadkuna markuu ahaa 1830kii, qeybo badan oo ka tirsan Mareykanka iyo England ayaa laga mamnuucay jiritaanka addoonsiga. Waxaase xusid mudan in koonfurta Mareykanka ay joojiyeen adeegsashada addoonsiga sanadka markuu ahaa 1860kii. Wadamada qaar sida Brazil iyo Cuba, addoonsiga waxaa la xanibay 1880kii. Maanta malaayiin ruux oo ku nool waqooyiga iyo koonfurta Ameerika ayaa ah kuwa ka soo farcamay addoommada laga keenay Afrika. Saameynta is-addoonsiga waxay jirtay jiilal aad u fara badan, waxaana mararka qaar dhaca falal jinsi naceeb ah oo looga soo horjeedo dadyowga Afrikaanka ah.
ayadoo la ogsoon yahay in waa hore lasoo afjaray. Nidaamka is-adoonsiga taariikhda dadyoga Afrikaanka ee ku nool waqooyiga iyo koonfurta Ameerika waxaa aad u xiiseeya dad badan oo ku nool dunida daafaheeda. Muuqaalkeen halkan ayuu ku egyahay. Waxaa inoo balan ah muuqaalkan muuqaalka xiga inagoo caafimaad qabno. Hana ilaabin in aad gaarsiiso asxaabtaada. Waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.